assalaamu calaykum. sideed u xasuusataa waddada loo maro guriga saaxiibka? maxay indhahaagu u ilbiriqsadaan adigoon weligaa ka fikirin xaggee riyooyinka ka imaadaan? waxaan oo dhammi waxaa qabta hal xubin, waana maskaxda. maskaxda ayaa mas-uul ka ah waxyaalahan iyo waxyaabo kaloo badan. ku soo dhowow muuqaalka maanta aan kaga hadlayno maskaxda bani'aadamka. maskaxda waxay door muhiima ka qaadataa xakamaynta inta badan shaqooyinka jirka, hadday ahaan lahayd fakarka, neefsashada, xasuusta, dareenkaaga iyo wax kasta oo nidaamiyo jirkeena. maskaxda iyo lafdhabarta si wada jir ah waxay sameeyaan nidaamka neerfaha ee dhexe. ma neefsan karno, mana ciyaari karno, ma jeclaan karno, mana xusuusan karno maskaxda la'aanteed. maskaxda waa isha dhammaan sifooyinka qeexaya dadnimadeena. maskaxda waa jawharad taaj ah oo ku jira jirka bani'aadamka. culayska maskaxda bani'aadamka waa 1.5 kilogaram, waxayna ka samaysan tahay baruur, biyo, borotiin, karbohaydrayt iyo cusbo. haddii aad ka yaaban tahay kombiyuutarka xawaaraha sare uu ku shaqeeyo ama waxqabadkiisa, ku soo dhowow maskaxda. ma jiro kombiyuutar dunida yaalo oo soo dhoweyn kara waxqabadka maskaxda. maskaxda 2% ayay ka tahay culayska jirka bani'aadamka, laakiin waxay isticmaashaa 20% oksijiinta iyo dhiigga jirkaaga. qiyaastii 75% maskaxda waxay ka kooban tahay biyo. tani waxay ka dhigan tahay in qadar yar oo biyaha jirka ku yaraada ay saameyn xun ku yeelan karto howlaha maskaxda. maskaxda waxay isticmaashaa qiyaastii 12 ilaa 25 watt oo awood ah xilliga aad soo jeedo, waana tamar ku filan inay iftiimiso laambad. maskaxda bini'aadamka waxay ka kooban tahay ku dhowaad 100 bilyan oo neerfayaal ah, waxayna ku kala wareejiyaan macluumaadka xawaare kala duwan. xawaaraha ugu dhaqsaha badanna waa 250 mayl saacadiiba. maskaxdaaduna way shaqaysaa xitaa markaad hurdo. maskaxda waxay leedahay 3 qaybood oo waaweyn oo kala ah cerebrum, cerebellum iyo brainstem. mid walbana waxay qabataa shaqo u gooni ah. haddaan ku bilowno, cerebrum waa qaybta ugu weyn ee maskaxda. waxay qabataa howlaha sare sida waxbarashada, hadalka, tarjumaadda, taabashada, aragga iyo maqalka, sidoo kale sababaynta, shucuurta iyo xakamaynta wanaagsan ee dhaqdhaqaaqa. midda labaad, cerebellum qaybtan shaqada ay qabato waa isku dabaridka dhaqdhaqaaqa muruqyada, joogtaynta qaabka jirka iyo isu dheelitiranka. qaybta saddexaad waa brainstem, waa qaybta u qaabilsan maskaxda, neefsashada, garaaca wadnaha, heerkulka jirka, soo jeedka iyo wareegga hurdada, dheefshiidka, hindhisada, qufaca, mataga iyo laqitaanka. ugu dambayn, hal sir: haddii casharka uu kugu adkaado, dibadda u bax, soo orod in muddo ah, kadibna mar labaad ku soo laabo casharka. sababtoo ah jimicsiga sida orodka iyo ciyaaraha isboortiga waxay qayb weyn ku leeyihiin inaad maskax ahaan iyo caqli ahaanba aad korto. saynisyahanadu waxay dhowaan ogaadeen in muddo ah markii aad jimicsi samayso kadib, jirka wuxuu soo saaraa kiimiko maskaxda ka dhigaysa mid aad u jecel inay wax barato.